maayir ku-xigeenkii hore magaalada Boorama Maxamed Maxamed Farax Dheerayste oo maanta uu tartamayay gudoomiyaha gola oo maanta uu tartamayay xilka qabashada maayirka magaalada Boorama ya kadib markii maanta ay soo dhamaatay doorashadii gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boorama loona doortay Saleebaan Xasan Xaddi ay xildhibaanada uu hogaaminayo garabka uu hogaamiyo ay qaadaceen doorashada Saleebaan Xasan Xaddi waxa uu si gaar ah ula hadlay warbaahinta waxana uu sheegay in guud ahaanba una aqbalayn kaasoo ka dhacay hoolka dawladda hoose sida wax u dhaceen haddii aan waxoogaa ka taabto waxa meesha ka dhacay waxa aad u fool xun baa horta ka dhacay iyada oo taliyaha qaybta gofarnatooraha wasiirka maxaan ku raahdaa ganacsiga iyo dalxiiska intaasiba ay lacag adeegsadeen oo ay ku campaign gareynayeen xildhibaanada qaar kamida iyagoo soo saaraya wasiirka ganacsigu inuu hadeeru yahay oo ku bari taageerayo waa inaan iyo aabihii oo halka kula tartamay anigu waxa Ilaahay mahadiya inaan si qurux badan uga guuleystay taas oo ku kala baxnay 10 iyo 10 cod haba se ahaatee idinkoo fiidiyoyada daawan doona oo ku dhawaaqay wasiirkii shirkudoonku cod malaha ee cod ka jar waana arki kartaan isagoo oo leh 19 18 iyo wax la halmaala mar 9 mar 18 mar 10 iyadoo in jirin wax ka aamusayna tiradaasina aad u kala duwan tahay haba se ahaatee bulshada Boorama waxaan u sheegayaa hadiiba ay sida noqoto magaaladu waxa weeye fadqalala saaxa iyo uu ku sii badanaya iyo buuqa iyo rabashku meeshaasina wuxuu ugu tala galay in wasiirku isagoo kii amniguna joogayna amni darra ka dhacdo balse waxaan u sheegayaa bulshada inay amni darra dhacayn maayarka xaq ah haddii xaq meesha jira anigu aan ahay maayarka xaq ah iyadoo ay ku cadaynayso wixii halka ka dhacay bulshada mar walba waan mahad celinayaa xildhibaanada intii dooratay intaan dooranba waan mahad celinayaa aba se ahaatee xukuumadda xagga sare waxaan tusayaa waxa halka ka dhacay in ay foojignaan gaar ah u yeeshaan haddii ma garanaysa ay foojignaan gaar ah u yeelan waayaana carqalada magaalada ka dhacda waxa uu sababa wasiir saajin iyo wasiirka oo ah wasiir ku-xigeenka amniga labada wasiir waa laba gunaysan iyaga laftarkooga oo kuwii socdaya qaybtood bay ka yimaadeen ujeedadana uga yimaadeen oo madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha guduhu ay ugu horeeyaan haddiiba arrinta noocaas ay ka jawaabi waayaan oo degdeg uga soo jawaabi waayaan si dhakhso leh waliba hawshaasi waliba aan sii tilmaamay ee ninka ka dambeeyay uu yahay Maxamed Muuse Diiriye tan wallahi billahi tallahi walaal kala tagayo halkan caari labaad baan ka noqonaynaa madaxweyne waxaan ku leenahay haddiiba barigoololayo galbeedna uu kugu qiiqi doonaa wallahi gogashii kugu soo galiyo billahi gogashii kugu soo gali waa inaad ka qabataa wax haddii kale adiga yaqaan مديرية بورما.